السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku tala galnay maanta waa Arbaco barnaamijkuna waa kii galabnimo qodobo muhiim ah inuu barnaamijka ku soo qaadan doonaa taariikhduna waxay ku beegan tahay 25 bisha June sanadka 2025 warbixinada aynu barnaamijka ku soo gudbinayno waxaa ka mid ah xaaladda Gaza iyo warar cusub oo ka soo kordhay Trump oo sheegay in dhawaan war weyn laga maqli doono dhanka Gaza Hamas oo markiiba jawaab u dirtay warkaas weyn iyo waxa uu ula jeedo Donald Trump haddaba xaaladda guud ee Gaza barnaamijkeenu ku faahfaahinayna Iran oo iyana la sheegay sabtida nagu soo aadan inay qaban doonto arin weyn haddaba arintaasu maxay noqon doontaa barnaamijkan idinku faahfaahin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa kulankii gelinkii dambe ee shalay dhexmaray Erdogan iyo Trump oo markaa aad warbaahinta Turkiga ay uga hadlayaan wixii la isla soo qaaday qodobada aynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinayna asxaabay inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo Arbaca barnaamijkana waxaynu ku bilaabaynaa haddaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xaaladda Gaza tan iyo markii xabad joojinta lagu dhawaaqay dagaalka Iran ayaa waxaa dad badan iyo mas'uuliyiin badan ay ka hadlayaan arinta ku saabsan Gaza iyo xaaladeeda in markaa wax laga qabto haddii kale xaaladda iyo khatarta gobolka bariga dhexe ay sii ziyaadayso waa tii barnaamijkankii ka horreeyay wasiirada arrimaha dibadda golaha iskaashiga khaliijka kulankii ay lahaayeen ay Trump weydiisteen in uu markaa wax ka qabto xaaladda Gaza oo Israa'iil halka ay joojiso dagaalka ay ku hayso haddaba Trump warar ku saabsan Gaza ayuu soo saaray jaridda la yiraahdo Al-Quds ayaa goordhow waxay qoraysaa waxay leedahay Trump wuxuu yiri ergeygiisa gaarka u qaabilsan gobolka bariga dhexe Witkoff inuu u sheegay oo uu soo gaarsiiyay war ku saabsan xabad joojin in laga hirgelin doono Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan in markaa xabad joojinta loo hirgelin doono warbixinta way sii socotay waxa leeyahay isagoo ku sugan magaalada La Haye ee wadankaasi Holland madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay Donald Trump maanta oo Arbaca inuu aaminsan yahay in horumar weyn laga gaari doono sidii loo soo dhameyn lahaa dagaalka ka soconaya Gaza Trump oo saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ergeygiisa gaarka ah Steve Witkoff uu soo gaarsiiyay arin iyo dedeelo leh oo ku saabsan in dhawaan markaa qarka loo saaran yahay in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza Trump marka uu iska hadla asaga uu iska tuuranaa wuxuu rabo sheegaa marka hadda wuxuu leeyahay ninkii Witkoff ahaa ayaa wuxuu soo gaarsiiyay xaaladdu inay gabagaba marayso mar dhow war weyn laga maqlayo bariga dhexe oo xabad joojin laga hirgelin doono haddaba mas'uul ka tirsan ururka Hamas ayaa markiiba telefishinka Al Jazeera wuxuu u sheegay inaanay Hamas la socon wax miiska saaran oo laga heshiinayo oo xabad joojin ah ninkan asaa iska camiranaya ninka Trump leeyahay wuxuu rabo iska sheegaa laakiin annaga waxay yiraahdeen positionkeena ama booski aan joognaa wali Gaza haddii xal laga rabo waa in shuruudaha la maraa koow xabad joojin daa'ima labo insixaab kaamil waxa la yiraahdaa ka bixitaan dhameystiran oo Israa'iil ay ka wada baxayso saddex gargaarka in loo fasaxo magaalada oo qabatayntana la qaado qodobada marka waxay aas-aas u yihiin doodda Hamas markaas kadib wixii la isdhaafsanayo wixii meesha maamulaya iyo wixii kale iyo markaas laga hadli doonaa laakiin marka hore waa in talaabooyinka la qaado marka talaabooyinkeena anagu waxba iska maana bedelin haddii wuxuu yiri iyagu ay wax iska soo bedeli doonaan ma naqaan marka Trump warka uu sheegayo Hamas haddaan nahay weli nama soo gaarin uu leeyahay weli waxaynu ku jirnaa wararkii Falastiin iyo xaaladahoodii ugu dambeeyay haddaba Israa'iil iyadoo ka caraysan dhibaatadii loo geystay shalay askartii laga laayay weli askartii maqnayd wax wara oo ka soo kordhay male ilaa marka laga reebo joornaal la yiraahdo Wala oo Israa'iil ka soo baxa ayaa wuxuu sheegay la leeyahay in askarta iyagoo dhaawac la helay ayna tiradoodu ahayd 2 ilaa 3
isaga laftirkiisu xog fiican maayo laakiin xogo uu xansaday ayuu sheegayaa marka laakiin weli warar official ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil ma jiro askartaan ka hadlayno waa kuwii xalay ilaa saaki aan ka hadlaynay waa la weysnaa Khan Yunis lagu galay la leeyahay waay haddaba marka maxay sameeyeen marka waxay xaasidnimo u duqeynayaan dadkii rayidka ahaa ayay marka ka aarsanayaan teendhooyin iyo waxaasay duqeynayaan haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray ilaa 40 qof ayaa shahiiday ayaa la leeyahay duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay laga soo bilaabo saaki aroortii arbacada ahayd ilaa hadda diyaaradaha oo marka Israa'iil ay ku weerareen dadka barakacayaasha deegaanka la yiraahdo Al-Mawasi oo ku yaala galbeedka Khan Yunis mawjada dadkii marka iska masaakiin 40 50 maalintii 40 la dilaa lagu leeyahay marka ilaahay dadka dhibaatada iyo mushkiladda ay ku jiraan ilaahu ka saar dadka waxa lagu leeyahay waa dadka ugu adkaysiga badan caalamka inta la arkay had adkaysi Falastiin 2 sano saas loo garaacayo oo wax u gudbaaya jirin oo rafaad guriga la'aan dhibaato guryoodii la burburiyay tabakaasu hadii dhul wax taraayo iyo dad dhul hadii muhiim u yahay Falastiin muhiim u yahay muhiimadda marka dhulka meeshaas ka fahmaysa waddankaaga hadaa faraha ka bixiso maxaa ku yaala wax ku yaala male nimanka kale marka waa soo arkeen dhulka Yahuudda ay degantahay oo dhan Asqalaan iyo Ashdod iyo Tel Aviv iyo waxa la leeyahay kullu dhulka Falastiin ay walaga soo ciirsada dal kala sameysmay oo Israa'iil la yiraahdo xoog ku sameysmay marka kuwii inta yarta oo ku soo hartay hadda la daba taagan in laga qaato la rabaa marka nimankaasu way halgamayaan oo naftay agdhigayaan wali waxaynu ku jirnaa wararkii Falastiin ayaynu ku jirnaa daandaansigii iyo dhibaatadii lagu hayay masjidka barakaysan Al-Aqsa wali way socotaa maantana waxaa leeyahay Yahuud fara badan tagtay oo halkaa kulligii ku soo cibaadeysanaysa masaajidka waxay ku soo tukanayeen lugi salaatul yahuudeed ay meesha ku soo tukanayeen iyagoo lugulaha ilaahay uga mahadnaqaya dagaalkii ka badbaaday godadkii ay ka soo baxeen iyo dhibaatadii iyo mushkiladii in ilaahay uu badbaadiyo ilaahay uusan mar dambe Iiraan iyo wuxuudaas uusan ku soo celin waa ducaysanaya lugulaha haddaba markaan idin tuso Al Jazeera waxay leedahay qolooyinka xooga ku degan dhulka Falastiin ayaa waxay xoog ku galeen Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak waxaana ay sheegeen warbixino Al Jazeera ay helayso in tira ka tirsan kooxdaasi Yahuudda ah ay xoog ku galeen masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa iyagoo sheegay in halka ku tukanayaan salaad la yiraahdo Talmuudiyya taasoo marka ay marka aaminsan yihiin inay wax badan u tari doonto oo marka sida eeriyada oo dhan marka waa la xaray marka maxaa la sameeyay aagagii oo dhan waa la xaray qof kale u soo dhawaa kara male boqolaalka Yahuudda ayaa galay meesha xoog ku haystaan ilaahay marka masaajidkiisa iyo dadkiisa ba badbaadi marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa marka wararkii Falastiin iyo Gaza intaas ay marayaan waxay soo kordha barnaamijka caawan isku wareysan doonaa markan waxaan galaynaa Iiraan iyo wararkeeda Iiraan sabtida soo socota waxa jira leeyahay xadath weyn ama dhacdo weyn la sameeynaya dhacdadaas marka maxay tahay Iiraan dad badan ka dhintay saraakiil waa weyn dhimatay waxaa dhintay niman culimo ah oo maaragtay sayniska oo nuclear-koodii wuxuuday halgamaa ahaa ayaa dhintay rag culus ka dhintay marka raggii oo dhan marka waxa leeyahay waxa loo sameyn doonaa maalinta sabtida ah aas qaran la sameyn doonaa haddaba marka aan idin tuso jaridda la yiraahdo Al-Qudus waxay leedahay Iiraan waxay wadaa qabanqaabada magaalada Tahraan in lagu qabto sabtida janaasada madaxdii iyo culimadii sayniska lagu dilay dagaalka ay la gashay Israa'iil waxa leeyahay waxa socotaa qabanqaabo weyn socotaa howl weyn socotaa marka hawshaasu halkaas ay maraysaa leeyahay qabanqaabadaas iyo hawshaas socota wararka kale ee Iiraan ka soo kordhay ee aan idin soo gudbinayo waxa kamid ah ciidanka booliiska iyo kuwa nabad sugidda Iiraan ayaa siday tahay u aruurinaya nimankii Mossadka waa idin sheegay dagaalka markuu joogso Iiraan laba meel haday iska saxdaa leeyahay
إسرائيل مريكان حتى وحوكا مقاضيان كو دفاع عركة إني لساتو لابو قدها دباتها كاهي سترى إني إسكحلسو نو كان درون إسكا طوريا وحيابها كسو طوريا مارد نو كان مركا وإني مارتي هذا مركا وحا سعودة تلابو nimankii lagu sifaynayo dagaal culus ayaa socda saraakiishii nabad sugidda waa la bedelay kuwii kale booliiska gudaha waa la bedelay kuwa cusubaa la geeyay waxaan ku eri waxa socdaa la leeyahay waa la isjafayaa mas isjafida socda haddaba jariirada al-Quds waxay leedahay Iiraan waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigeen 700 oo qof oo lagu eedeynayo inay u jaajuusayeen oo ay markaa u basaasayeen Israa'iil 12 maalmood ee dagaalku u socday dadkii la soo aruuriyay ilaa waxay marayaan 700 oo qof ay marayaan 700 oo qof ayaa la soo aruuriyay marka kuwa kalena wali wal raadina war meeshu waa laga adeegtay siday tahay Israa'iil u dhaxgashay meeshaan way ku dhaxgalgalatay waliba si kale uma taqaanid لا حول ولا قوة ورنمك إيرانيين تهوا بيسكور دايين هم بلاينا ما اللي يجرين كال الشيء ولا قد حديقت إلى درون يسلقوا سمينا يكور جودي هذا درون يسلقوا سمينا يشقال الله كان صنايو واحد ماشى سالم مرة لكن واحد صورة مركب وحليه هاي نبات هذا وجوين وحكي معنا سادتك جودها قاركود وعن نظام كتشعلين سيدي إذا وجاده سيستم كأما نظام كمركو مدرع dadku way nacayaan dadku way ka hor imaanayaan way nacayeen kasto oo ayatullaahi oo talaabooyin badan sameeyay dimuqraadiyad sameeyay madaxweyne soo doorto dhahay adinka baarlamaanka soo doorto uu dhahay asagu uu kor ka maamulo haddana marka waxa leeyahay hawshaas halkaas ay maraysaa qadar xayisiisha kadib wixii kala warar soo kordha ayaanu halka ka sii wadi doonaa sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هب عصرية أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض هذا شقدا مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهب عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا القرآن الكريم إكادة لغة العربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد وهي فافاهينا كالحريد من برض الشاشة كان المغضى هموكادي دوكسيجا مركز دار التقوى كل تورك سنة أصحابي مالكستو أجوكتان كسور وهذا barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyay waa barnaamijkii galabnimo maantana waa arbaco haddaba warar goordhowna soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in khadiibka masjid al-aqsa ninka la yiraahdo akrama sabri uu sheegay in 100,000 oo wuxuu yiri in dad 100 ilaa 1,000 gaaraya oo doonaya inay ku dukadaan oo ay soo gaaraan masjid al-aqsa إسرائيل أي أديدي مساعدك واحد قلاي ملايتر يهودية ما أنت كتشرتي لادين واحد سوقلي كرا ماشاس مجران مركا هاوشاس وهالكاسي مريسا لانك كلي مدحوين ياشا مريكان كا تركيا يا حالي كوكول مي قريقا بقركا ودن كهولان وعشلو قسمي مدحدا قاشان بورتا نيتو وهالكا شروع تغي هذا بقى رما حساسية كان لين ترام يو أردوغان waxaana ugu muhiimsanaa arinta bariga dhexe Trump iyo Erdogan waxay isla soo qaadeen Gaza inay muhiim u tahay bariga dhexe Gaza arinkeeda oo aan la xalinin waxa la ismaa inaysan jirin oo xaalku mar walba uu meel ka qarxayo marka sida daraadeed Erdogan wuxuu u sheegay in ay markaa Mareykanku ka shaqeeyaan sidii dagaalka loo joojin lahaa waxa dhan meel walba وقرح ساولي حدان تن لغا هورتغي marka waxa leeyahay Trump isaguna uu ballan qaaday inuu xoog saari doono in marka dagaalkaasi si allaali sidii lagu joojinayo
saa markaa lagu joojiyo. waxay sidoo kale ka wada hadleen cilaaqada xiriirka labada dhinac u dhaxeeya ee ku saabsan xiriirkooda ganacsiga sidii loo sii xoojin lahaa iyo arrimo kale oo muhiim ah. haddaba barnaamijkayga galabnimo waa naga intaa. wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaan kula socodsiinayaa. gareeya oo share gareeya. haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloomi youtube-ka, facebook-gana follow gareey. nabadgelyo.